fariinta tan waxay ku socotaa caasi waalideenka caqligoodu liito oo dalkii kolkii ay tageen halka ay qurbaha wax fiican ay ka soo arkeen ay ku soo barteen ugu faa'iideyn lahaayeen ay fariintoodu kaga dhigtay sodo hooyo kaga dhigtay hooyo dambas hoos fadhida iyo dhaxal hooyo aan baan baris adeegsan oo ilmaha saxaraha gacanta kaga dhaqaysay hooyo dhuxushay afuufayso dabkeedii indhaha ay ka geliyeen hooyo aan dhakhtar haysan iyo isbitaal ay ku dhigto oo darmo iyadu iskaga dhalisay bay waxay doonaysaa intay dalkeedii timi dhaxalna uga dhigto waxa iyo hadalladaan dhawaqoodu wacay hawaan qabtadaasaan la hadlayaa fariinteeda haddii aad garanaysaan whatsappka ugu dira oo fiberka ugu dira oo instagramka ugu dira oo ka nin lamoodka ah magta iyo magaca iyo muuqa raggu ka sima marka lagu leeyahay magacii rageed عوض هلا كان إذا كان أنا تسد دون أكو عيارين فرينتي ذكرسي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما سمالوين مالو البادونية كجوكتين جمعة ولكسن جمعة كان يجمع عيال كرب بدلنا الله هو إحنا كذا رجيني عافمات عبادة صوبني عمل خير بتكسو مراد له إن بهاي مراد كسبت خير ودي وكو إحنا صنوا عافمات تامسي كان جيريودي تندي بتقول هو بيقول كل هيك جيريودنا سمي ما نكسي ولا شيء سرح ما رش هو بركيو كل السوق جاينا نال بدلنا بركيو سنحسي بركة marka dhasho ku daraayo ilaahay awlaad nasiib lama yiraahdo ilaahay awlaad barakeysan nasiib baa yiraahdo ciyaal barakeysan ilaahay weydiisata kuwa amal la khayr marka waxa weey kuwa caasi waalideyna oo amaladii waalidii casharadii aqoon baan caaw 10 u dhigaya billahi alaykum fariinteeda gaarsiin hadaan anigu wiilkii maalmi hooyadii ku haw kare waan soo booqana hooyadii gurigii intila kuma hooyadii way ku noolaan waan ogalay kamana xasab qaadanayaan كان إذا كعليك فقراء مغرفة حقان السيد إن هو يدي أقول لك لكن واحد فسر واحد غلطان إنه عليك فسح كعليك عليه وعاشو هو يدي أنا أقول لك هو يدي أنت دوتي كنا ولا راح يبقى كنا لا السبب فسح وجمع قاضي كمان مسؤول أحد خير كي يقول شيء إيمان يقول كبحين أضو يا تمام ninka inuu ka amar qaato aad rabtaase horta mid caaqo meesha agteeda fadhiyay kaasoo kala maleynaya la dhageyso aduu nin rag inaad guursato oo guri ku geysto ma rabto doqon baa rabtaa doqon nin hooyadii wanaag u fari waayina de adiga wanaag ku geli maayo dhageyso listen to me carefully sister real man do what I'm not smoking wala English oo kash real man he don't need you maatan dareenka ee bahay quraanku ugu tilmaamay oo bir waalideen ihsaana lagu soo barin hadii lagu soo bar lahaa heerka ma gaadhin kanina aad ka filayso inuu hooyadii xumeeyo oo uu yiraahdo hay iman oo adiga ku soo dhaweystana adigana bari cidlu kaaga tagayaayo dareenku siimayo caruurtaaduna darajo heli mayso adiguna deeq heli mayso hadda koorba waxa dhacday gabar baa waxay dhibsatay soddondeed iyo ninkii qaba hooyadii markaasay tiri waxaan doonayaa habarta tan dareenkii iyo dariiqii aan ku dili lahaa iyada aan la fahmin tiktok bay u tagtay waxa tir tiktok islaanta soddonda iyo way canaanatay ciil bay badaayeen dhimataan doonayaan aan la dareemin daawaysi kolkaasuu tiktok wuxuu yiri daawaan ku siinay dadkuna aan dareemin iyaduna aysan dareemin oo malab aan ku daray ee aroortii markay soo kacdo qoraax fiican si hadal wanaagsan kula hadal malabkaana shaaxa ugu dar si aysan kaaga shakiyin asarkeena sidaa ayaa xilli kasta ay gaajo aad ku tumaysan cunno si timaha u shanlay lugahana u riix 20 cisho sida markaad ku wado iyadoo waxaad u tagaysaa wiil meeyda maalinta dambeed lana shaki maayo lagu dareemay gabadhii ayay tiri malabkii bay la soo booday wax bilowday inankii hooyadii inay naxariis iyo daryeel iyo duco iyadoo aan ka doonin ay daawadii siiso laakiin satimihi u shanlayso iyadoo isla kordhow dhimanaysaa bal yaan laga dareeyo 10 cisho marka ay ku waday ayay islaantii dareenkeedii isbedelay oo istiri hooyadii gabadha wanaagsan ee baariyada ah ayaa hadal xun iyo hadal kululaad ku lahayd gabadheedii ay intii madax ka dhunkatay hooyo waa ku ducay markaasay shilmaaday haysay oo lacagaha gabadhii siisay kolkaasay dahabay waa meel ku ogeediyada ay lahayd u soo saartay oo iyadii siisay oo tiri ducaan kugu ogaa gabadhii tiktoorkii iyo dhakhtarkii ayay si dhakhsa ugu noqotay ku tiri tiktoor fikirkan shalay wata mid ka fiican baan maanta wataa tiri ilaahay darajaha ku siiyay ma ila dadaalaysaa hooyada ma ila badbaadin kartaa oo sabab markaas waxay tiri hooyo waa hooyo macaan oo naxariis badan oo i jecel oo ii ducaysa mana doonaa inay iga dhimatee dareenkayga waan bedelay tiktoor sidee baan ku badbaadin karnaa nafteeda si ma ka gaari karnaa tiktoorkii wuxuu yiri
aragtidaadii shalay maxaa iska bedelay waxay tiri kolkaan u naxariistay anoo dil u qorsheynaya naxariis bay isiis kolkaan u roonaadayna waa ii roonaatay inay iga dhimatona dooni maayo si kastay xataa igu canaanato igu xanaaqdo raxmad baa ka dambaysay waxaan doonaya inaan dhinaceeda joogo doctorka wuxuu yidhi daawo adaan ku siiyey misna ku jirto maaha daawo malaba oo caadiya bay ahayd waxaana ogaabay tiri hooyadu inay tahay mid markasta naxariis badan oo kol kastaad naxariis tusto iyadoo ay naxariis ku tusayso wanaageediina maanta waa adiga arkee wadeecaha la dooni waxaa loo golleeyay gabadha tan aragti ahaan isku qabfishay sodohdu inay cudur tahay oo caqligii uu kaga fariistay sodo dumarkan sanadka maanta see laga yaaba taa naagi in lala guursado ma ogola iyadoo caqligeedu sidaa yahay camalkeeduna liito ninka hooyadiisna ma ogola ma arag naxariisteeda ma dhadhamin wanaageeda lama kulmin waxay isku sii qafishay sodohdu inay xun tahay oo cadow ku tahay waa musalsalaadka la daawanaya turkiga iyo nawaalaya ahade filimaanta tanaad daawanayso fariintoodu maaha hooyooyinkeenu aragtidooda kuwa ay saatay waa kuwa naxariis badan jirab iyo dhib iyo dhibaatana dhashooda iyo dhallaankooda kala soo mara dambasu afuufay dab kululoo indhuhu ay kululaanayaan wax uu kariyey la silcay oo la rafaada weya dhibta ay nala mareen iyadoo awalba hooyo kasta dhib dhasheeda u marto dhibta ay hooyooyinka Soomaaliyeed raggooda iyo dhashooda u maraan kuwa la tilmaami karo abaalkooda la gudi karo ma quraanka ee bahayna waa wuxuu ku sheegay naagtii ku fikirtay inay nin hooyadii ka goysan iyada go'aysa wiilka hadii hooyadii ay ku tiraahdo wiilkaygiiyo tan naag kuma noqoto waa caas waalidiin oo waa habaar qabto oo iima roona aabaheedna ku yiraahdo dil ma tegaysanaya walaal naagaha kan nimanka la sheekaysta ay sugayaan wani marcankee nimanka ay inaha dawaan la moodo yahay waan la moodo ahad nin hooyadii u naxariisan waayay oo wanaag tusi waayay oo dareen siin waayay adigana ku naxariisan maayo hooyadan u naxariisan maayo taa horta niyadaada geli oo aqligaaga geli haddii aad soo aragto nin hooyadii u baarre oo u siciima oo u wanaagsan oo la waan jeclahay oo la weela dhibtootay adigana waa ku wanaagsanahay nin hooyadii kaaga guuray galab cad buu kaa tagay ay dadku wada arkayaan oo dareen ku sii maayo marka taa dareenkaaga geli ninka kaa qaatay oo kaa yeelaana waa ximaarkaa baroona waa la rartaa ximaarku ka liita warbarkana aan idiin shido ximaaradan tilmaamayo ku caqliga laytuu ka mid yahay miyaan hooyo dhalin golayaasha fadhiya waxay madaxweynaha hablaha yara cadadinayaan ku gudbaya banaan baahan aragtida qofka bilaabaya laga yaabo waxay ugu qoran rigiisa loo tirka kalimaad ku go'day intuu saxsan markaa way adarayo la wadato markaa kiisa xawlku gabdhihii yaryarka ahaa iska dhaadhicinaya odayaasha waxaa u madaan dhinac u jaran jaraan wariyaa hedhigayso caaqo naagta dareenka liidata aad ugu beer la hawsanayso iyadaana damiir lahayn oo haddaad isleedahay way kugu doonayaan real man gabar kasta oo ku fikiraysa oo himiladiisa rajaynaysa nin hooyadii u roon oo u baariyo ku fikiraysa wariyaa miyaan lagu foolan miyaan sagaal bilood uurka lagugu sidin yaa saxaraha kaa dhaqay adigoo nin ah oo hadlaya oo soconaya aad is aragtay oo aad naagta sabanaysaa tii ku foolatay meeday tii dabada kaa dhaqaysa meeday hooyadii cunada sida loo cuno ku bartay ilaan cagacbaha kan iyo caqliga kanaad ku soconayso shalay kuma aadan korin ee afku wax kugu gureysay iyada ah abaydin anoo ah iyo anoo ayni doora jiro kuwii ilaaliyay asluubtayda toosiyo abaal baan idiin hayaa ifkana naxariis ku helaa aakhira jannadeedu haddaad asluub leedahay oo damiir iyo damqasho leedahay dareen xumo lama doonteen kuuga gadaadiyey kuwii wanaagga kula doonay kuwii garabkaaga taagnaa gabar kastoo caqli leh way ogtahay ninka baariga waalidkii u ahay inuu iyadana u wacnaanayo hooyadeedii waalidiinteedna u wacnaanayo caaqa kaa dhegaysta caqligaa liitana waa mid kula garashiyo garaadle mid kastoo garaadle oo Soomaaliyeedna wuxuu la yaaban yahay damiir xumadaada waliya marka istaghfirullah oo hooyada hadday nooshahay waa ka naxisay hooyo yafid hawa qaba day nooshahay hooyada oo ay wax maqlayso oo ay wax arkayso fariintaadii hadday aragtay naxdin meel bay u tahay ilaahay waxa uga baryay inay hooyada kuu soo hanuuniyo oo kuwa kale hadday kula dhasheenna uu baari uga dhigo arma hooyo hadalkaa la maqashiya beerka caar ku goysa caqli xumaa warigu soo ku ilaahay jiro meelaha laga heli jiray damiir xumaa wala ay noolyihiin kuwa badan oo sidaas fariyadan in maqashiyo mid kaleeto oo aan isirida caqligeedu cunada ay cunayso ayuu ku egyahay saacaddu wax kaga fariisatay hooyada iyo hooyadiis bay yar noo iman
hooyaa kugu imaanaya balaaga kugu imaanaysa weliba sodohda markay timaado cuntada comment ka samaynayso milix buu waa bilaa dhadhan inankeyga wuu caatoobay waxa meesha cugdad baa imaanaysa waa la is kanina ku imaada horta cugdad webagelaysaa sababtoo caqligaagaas wax buuran kuma hadlin cusbana waa ku dilaysaa sababtoo caqliga ku siinaad hooyadii nacsiiso inaad gaajo ku dishan oo ku siinaya ninka kanaad qolka isugu soo xirayso inaad xaraysato rabto ku xaraysata macaankaad ka sugayso iyo miciinkaad ka sugayso warshadii soo saartay baad leedahay macquul maaha inuu aado yaa kaa dhegeysanay ma maxawayaan baad u warramaysaa waxa kan xagee ku noolaa irar kuwa kan xagee ku nool iskuul baan u furanaya kuwa kan baan ku listen to me carefully sister are you mad are you sick nawaa hooyadii 9 bilood bay urka ku siday kitaabka eebahay wabiril waalideyn ihsaana baa ku qoran jannada in lagu galaa ku qoran adiga kan ku guursada hatta hadii uu ku naxariisto waa ku oo sadaqo iyo khayr laakiin khayrka hooyada ma khayrka ma gaarin inuu qolku ku xidho janno ku gelmaayo hooyada ka carro naar buu ku gelayaa carruurta dashaana caasi bay noqonayaan marka nobody needs you nin aqli leh kuma rabo doqon baa waxa doonaya aragtida naag leh waa daciif aqlina male gabadha fariida oo garashada dheer waxay ogtahay ninka hooyada u roon inuu iyadan u roonaanayo hooyadan u roonaanay laakiin ninka ka qaadanaya inuu hooyadii ka cararo adiga ku soo cararo dirna ka cararaya adiga wax kasto oo aad tiraahdo haabo oranay hatta hadii niman guriga kugu soo galaan oo aad wax kasta u bareeraysa dad niman baad soo xareysanaysa ninka naagta ku fikirtay hooyadii ka tago ninka adduunka ba ka tago ama meel kala gaaro waxaad inta ku fikiraysaa dameerka celidiinka celisa toona yeelamaysa wax kasto xumaan oo ku arko hayeegu oranay ilaan caaqnimo ka qaatay inuu hooyadii ka tagay marka afka xiro afkaaga ka bartay in cunada la cunana ha ogaado inaadan hooyo isku dheerin karin gabar kasta lama oran karo مثال looma soo qaadan karo hableena kuwa dameerka iyo dadnimada leh baa badan hooyo waa lama taabtaan la isku ma dheerin karo ani baan arosyo ina ba hooyadii aroskii wax ka oriyooday canaantay tu guursanay dameerku waa nasiib waa inaan joogno wallahi aroskana ka soo dhaca habeen baa dhacday ina baan lahayn تلفون كله اللي ما هو يدا واحد الجواد يديه كان هو كان ليش يديه مركز واحد المالك الثاني ما حد يستقرع معي يقطع تلفون كان كله يوم قلنا عبوش يا باي باي فيسوع على يصاب بيترسلنا واحد أي شيء مثالي تيجي كل شيء يأكل فالتي هدي أساء كتحي وهنا دخلنا سوق أطلب بسنة يسوع الدمير كوسن كوسين أنا ترى هو أنا وحكوس وقلي أنا ما حد أي شيء يسوي لا والله ضيعتك لا يبغى ويحشوا تيوي حد هو يدا كتبتك مرتب أي شيء دون hooyada waxa ku tiri oo ii sheegi doonta aheed dameerku kuma eegayna adiga daba timaadee ma khayr alla siiyay aad la heleysay baa ku yinaardo hooyada raac ana fiiri hada ilaahay baa ka yeersiiyay markaasaan waxaan hadii hooyada sidaa ku tiri khayr kaama dhawo ma waagi horan hooyada waa dibsan jirtay inay kula doonto ma ay tiri maanta uun baa hayaba ku leeyo muddo kadib ayaan hooyaday iyada aan la hadlay dhowr jeer ay waanu tagaayo isug baan dhahay hooyada ay waanu tagaayo isug baan dhahay dhowr jeer markii hooyada ay wacday oo waa waalido ama marba halka wax iga soo qabo kooranaysa ama marba wax ku weydiinaysa ay tiri malaha 3 jeer markaan hooyo u tagay maamada maxaa ka sii oo kale aad raan ku soo celi maamada maxaa ka sii xasaan kan taabto markasta ay soo wacday telefonkayga nag baan ku kasi maxaa kale telefoonka ma qabato shib markii damaatay tiriyaasiin oo xalay oo tadkhadii fahanto arrinka hooyo adusatay lama hado waaya damaatay soo wacday wallahi waa naayr iyo ismooti minute awal hooyada inaan kugu ogaado kaaba tagay ahayd waan hasa ahaatee maquust baan noqday waxaan war raxmad ee baa ka quusan walkaasi wanaagsanaad hooyada oo soo dhacday telefoonkayga dambe kugu ma arkaa kuma rabo naag hadaad ka soo harto adduunku hadduu gabagaboobo gabarna ay noqon mayso naanoo hadlaya oo soconaya oo dee labisan waad aragtay baan ku iri
ما واحد لا يقصو برا دكتور ما يولع ميت كلية الأدبان sababtuna waxay tahay waalidku qofku inuu naxariisiyo dareensiyo uu jeclaado isagay danto isagay janno u tahay isagay farxad u tahay isagay rajo iyo raxmad ee bahay u tahay aaga marka intii qurba ka soo qaxeen dalkii dhaqan celiska loo geeyay barorta quraanka hala baro baarinimada waalidka iyo waxay mudan yihiin hala baro gabdhaha kale tii hadlaya oo kuwa dalku kora macnaha waalidka iyo maamuuskooda kuwa kan kale tan reer galbeed baa laga keenay iyagay bay ismoodeen warku waa qurbaha laga keena ku fikir maayaan dalka waxyaabaha aad ka soo faa'iideen qurbaha hadii dariiq dhisidiisa noqoto iyo hadii caafimaad noqoto iyo hadii darajo kale noqoto dadka ugu faa'iideey sodoh iyo ku qafilamay dalka soo wada galiyaan diyaaradda ka soo wadagay ayaan nimanka inta casbaa lagu koriyay dacs wallahi idinka tagay idinka idina idin yeelmayso barnaamijka si faafiyo kuwan luqada ugu diray wax kasto caasiyan amal wanaagsan lahayn kala kale intaan dib ugu kulmeynana warsani wa khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh